بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد ودرسيين اللحي تبناد من دروس شهر رمضان شلي وحين ودن بينا نكسو هذا اللي آدابتا أي لا مركا إيا شروطة قفك مركو إلهي بريايو أما إلهي وحسا يلا وقباهان يهي waxaanu soo gaarnay adabka afaraad yaa adaabta looga baahan yahay qodobka afaraad baanu soo gaarnay qodobka asaga waxaa weeyaan in uu qofka xoojiyo an yuqawiya rajaahu fi mawlaah waa inuu xoojiyo markaa rajadiisa oo ilaahay uu ka rajaynayo baryada uu baryay rajadaas uu ilaahay ka rajaynayo rajo aad u weyn waa inay tahay inuusan ilaahay naxariistiisa uusan ka quusanin qofka haddii ay doonto ijaabadiiba ha kadib dhacdo oo shaygu uu markuu ilaahay ka baryayba uusan hore ka helinba waa inuusan markaa dib dhigsanin ama uusan daahsanin wuxuu ilaahay weydiistay yacni shay kasta wuxuu leeyahay ajal buu leeyahay iyo waqti uu imaado buu yeelanayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay yustajaab liaxadikum maa lam yucajil midka idinka mid ah waa laga ajiibayaa ducadiisa haddii uusan markaa ayada degdegsi dalbin weeyaan oo uusan oran fayaquulu qad dacawtu falam yustajab lii waa ilaahay waan baryay waxbana la igama ajiibin aadaabta waxaa ka mid qodobka shanaad inuu qofka ilaahay u weydiisto markuu ilaahay u baryayo dadka mu'miniintana inuu ilaah ugu daro weeyaan ayagana u duceeyo nafsadaada markaa ilaahay adiga baryayso dadka mu'miniintana inaad ugu darto ayagana ilaahay markaa u weydiiso weeyaan inuu u dambi dhaafo u duceyso ilaahay wuxuu leeyahay wastaqfir lidambika walilmu'miniina waalmu'minaat nabigaa lagu leeyahay yacni ilaahay adiga dembi dhaaf weydiiso dadka mu'miniinta oo ragga ah iyo hablaha mu'minaadkana ilaahay dembi dhaaf u weydiiy baa lagu leeyahay aadaabta ducada waxaa ka mid inaad ku bilowdo ilaahay towxiidkiisa inaad ku bilowdo markaa ducada aada baryaysa ilaahay towxiidkiisa inaad ku bilowdo siduu nabiyullaahi yuunusba uu sameeyey raximahullah sala allahu calayhi wasalam siduu sameeyey nabiyullaahi yuunus calayhi salaam oo fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin buu yidhi ilaah buu markaa yacni mugdiyo dhowr dhexdooda buu ka soo dhawaaqay laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin naadaahu bitowxiid buu ilaahay ugu yeeray huma nasahahu can innaqaa'is kadibna ilaahay wuxuu ka hufay waxyaabihii nuqsaanta iyo dhimanaantoo kale والظلم والتسبيح يعني لا وتسبيح صدق يعني محونا اسكو شيغا marka dadka dhaalimiinta inuu kamid yahay nafsadooda dulmiye nafsadiisa wuxuu kula laabtay inay tahay dhaalimad asoo waliba qiranay dambiga iyo inuu marka istixqaaq dambiga marka asaga uu mutaystay inuu asaga dambiile yahay iyo marka asaga i'tiraaf iyo dambiga asaga inuu mutaystay markaas buu ku dhawaaqay weeyaan ilaahay bay kadib wuxuu yiri marka kadib ilaahay فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني لو كأجيبنا مقديدي مرودي همي وكجري كربدنا وكفيدنا ويان عذابت الدعاء وحاكمي قفك مركو إلهي بريي إنه سقر سودي إلهي أبريو عدنا أيسن مغلن مركا عد ولمنا جوني وإلهي ما هن عد كلان إنه سمركا أوسن مقشين ويان إلهي وحوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية ورإلهي بريا adinko markaa u tadarrucayo oo isku bihinay si qarsoodina u baryo weeyaan oo alla kaligii inaad maqasho cid kale inay ka maqasho maaha xasan al-basri wuxuu leeyahay kaana al-muslimuuna yajtahiduuna fi ad-ducaa muslimiinta waxay ahaayeen kuwo ku dadaala ducada ayay ku dadaali jireen walaa yusmacu lahum sawtun codkoodana lama maqli jirin in kaana ilaa hamsan haddii waa cod markaa iyada duuba jireen hamsiga iyo nunuda yarbis baa laga maqli jiray فيما بينهم وبين ربهم همسيغا ayaga iyo ilaahay u dhaxay maan wax kale lama maqli jirin buu leeyahay aadaabta ducada keeda sideedaad waxaa ka mid ah haddii aad ilaahay weydiisanayso shay waxaad laasimtaa at-tadarruc wal-istikaana inaad miskiin iska dhigto yacni tadarruc aad la timaado sheekh salaam ibnu taymiya oran jiray ana al-masaykiinu ana al-faqiiru ana al-musaykiinu ilaa rabbi al-bariyaati buu oran jiray aniga miskiin baan ahay ani mid u baahan baan ilaahay يعني إلى رب البريات ما أباهنا هيبو أورنشل مركا إمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نفس هذا واحد كفو جيسا يعني أود يسلويني وحيابها صورا
miyaadan arkaynin nabiyullaahi yacquub calayhi الsalaam in alxukmu ila lilah calayhi tawakaltu wacalayhi falyatawakal ilmutawakiluun buu leeyahay. ilaah baa wuxuu markaa asaga ah, ilaahayna markaabaa wuxuu siiyey oo u dhamaystiray wuxuu ilaahay uu ka doonay. kadib baa waxaa nabiyullaahi yuusuf miyaadan arkayn asagoo odhanaya qaala rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhin, yacni waan wiilanayaa weeyaan wa akun min aljaahiliin baan ka mid noqonaya. kadib maxaa dhacay markaa awooddii iyo xeeladii oo dhan nafsadiisa markuu ka fogeeyey faاstajaaba lahu rabuh fasarafa canhu kaydahunna inahu huwa الsamiicu اlcaliim. rabbigii uu ka ajiibay weeyaan, yacni kaydka dhagartoodii iyo waxyaabihii oo dhanna markaa ilaahay uu ka leexiyey. inahu huwa الsamiicu اlcaliim, ilaahay ducadiisii wuu maqlay. fatama lahu amruhu xiina اctarafa biliftiqaar, ilaahay arrinkiisa siduu ahaabuu marka uu doonayay buu uga dhigay markuu qirtay weeyaan iftiqaar, yacni ilaahay inuu baahan yahay. wa akhraja can nafsahu min alxawli waalquwa, nafsadiisana markaa iyada uu ka saaray awood iyo xeelad. wafawada alamra ilaa rabbihi subxaanahu watacaala, arrinkiisii oo dhanna wuxuu u bandhigtay weeyaan, ilaah buu u bandhig. aadaabta keeda sagaalaad waxaa ka mid ah an yakuuna adaakiru calaa akmali sifaat, qofka ilaahay xusaya waa inuu yahay akmal sifaat, waa inuu ku sugan yahay. haddii uu markaa fadhi uu fadhiyo, inuu markaa isaga ah meel uu fadhiyo inuu isqiblada qaabila baa looga baahan yahay. weliba jalsatu lmutadaliliin mutakhashiciin waa inuu markaa u fadhiisto, yacni fadhi markaa isla weyne aysan ku jirin, yacni isdullayn iyo khushuuc iyo sakiino ay ku sugan tahay iyo waqaar, isagoo weliba madaxiisa hoos u raaricinayo. marka ayada haddii uusan fadhin xaaladan ahayn uu ku sugan yahayna, yacni way bannaan tahay inuu ilaahay ku baryo, wax karaahana marka ayada kuma sugna fii xaqih. lidaalika laakiin haddii uusan cudurdaar aysan haysan u fadhiya, sidaas baa markaa u fadli badan. haddii uu ka tagana nin fadiiladii afdaliyadii ka tagay buu noqonayaa. arrinka asagana waxaa ku tusinaya inaysan karaaha aysan ahayn qofka inuusan marka haddii uusan fadhinin qiblada isagoon qaabilsanayn inuu ilaahay uu baryi kara, ilaahayna uu xusi kara. ilaahay hadalkiisa uu yidhi ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaar laaayaati liuli lalbaab ay ku sugan tahay, aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuudan, kuwa ilaahay xusayo oo baryaya marka ayagoo taagan iyo ayagoo fadhiyo, wacalaa junuubihim, ayagoo dhinac u jiifa weeyaanoo jiifa. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بيليهم. waxaa ka mid a markaa ducada aadaabteeda inuu qofka ku celceliyo ducada weeyaan, inuu ducada ku celceliyo ayaa ka mid a ducada markaa aadaabteeda qofka looga baahan yahay, inuu ducada ku celceliyo baa looga baahan yahay. cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay kaana nabiyu sal ly slam kaana yusalii cinda alkacba, nebiga sal lla alay wasalam wuxuu ahaa mid kacbada agteeda ku tukada. wa abuu jahl wa asxaabun lahu juluusun, abuu jahl iyo asxaabtiisana meesha ayay fadhiyeen weeyaan. id qaala bacduhum libacdin, markuu ku yidhi barkood barka kale ayukum yajii'u bisala ljuzuuri bani fulaan, yaa markaa la imaanayo madheerta markaa ayada ah reer bani fulaan, oo fa yadachu calaa dahri muxamed, nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhabarkiisa sidaa u saaray idaa sajada markuu sujuuda. fanbacatha ashqa alqowmi, waxaa soo bixid kacmay weeyaanoo soo baxay kii markaa asaga ahaa qowmka ugu shaqisanaa ugu dhuldarsanaa. fa jaa wuu yimid bihi, wuu la yimid, fanadara wuu sugay weeyaan xataa idaa sajada الnabiyu sal lla alay wasalam, ilaa uu nebigu sal lla alay wasalam uu ka sujuuday, wadacahu calaa dahrihi bayna katafayhi, dhabarkiisa weliba labada garab dhexdooda ayuu sidaa u dhigay weeyaan. wa ana anduru, anigana waan eegayaa buli cabdullaahi mascuud, laa agnii shay-an low kaanat lii manaca, yacni awood uma lihi buu yidhi, waxba kama tari kara, awoodna iima sugnayn. qaala wuxuu yidhi fajacaluu yadxakuuna wayamiilu bacduhum calaa bacdin, waxay guda galeen barkood inay wada qoslayaan, barkoodna barki kale uu sidaa ugu iilanayo bay guda galeen weeyaan oo la wada sheekaysanay. wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nabiga sala allahu calayhi wasalamna wuu sujuudsan yahay, laa yarfacu ra'sahu, madaxiisa kor uma soo qaadaya, xataa idaa jaa-athu faatima ayaa u timid weeyaan, fataraxat can dahrihi, dhabarkiisa ayay ka tuurtay, farafaca ra'sahu, madaxiisii ayuu soo qaaday. uma qaala wuxuu yidhi allaahuma calayka biquraysh, ilaahayow quraysh baa bax ka dhig buu yidhi. 3 maraatin, 3 mar buu ku celiyay nebiga sal lla alay wasalam. waxaanu markaa halkaa uga dan leenahay yacni in lagu celcelinayo ducada, in lagu celceliyo.
fashaqa calayhim arrinka asagabaa dhibay weeyaan id daca calayhim markuu habaaray qaala wuxuu yidhi wakaanuu waxay ahaayeen yarawna kuwa arka ana adacwata fii dalika albalad mustajaaba inay tahay. kadib nabiga sal alla alay wasalam markuu guud ahaan uu habaaray buu haddana gaar ahaan dad qeyb ka mid u habaaray. markaasaa wuxuu yidhi allaahuma calayka biabi jahlin wacalayka bicutba ibn rabiica washayba bn rabiica wاlwaliid bn cutba waumaya ibnu khalaf وعقبة بن أبي معيط بوير النبي صلى الله عليه وسلم وعد السابع أبو تريب بولي عبد الله بن مسعود فلم نحفظه لكن ما نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده وحويري عليها أي نفسه إذا قعنتي سيكدر طبعا كدارتي لقد رأيت وحانركي الذين كوي عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتري مالك أو هباري سرعى في القليب أي قليب بدر أيضا مركز سذا ودا سنبان أركي بولي حديث كان هو حديث متفق عليه. إمام البخاري إمام مسلم بويسو صارين إمام البخاري وحكوسو صاري لبب قولي أفرتن إمام مسلم لكنت دوب قول سغاشني أفر بوكوسو صاري ويان. وعاك لو كنت سنة مركز الدعاء مركز قفك الله بريه إنه إلحاح وكعل عليه وإلحاح ولي ماذا وآذابت هذا يكمل حديث أنس بن مالك بكنت سنة يسيد وكلا يذكر أن رجلا أنس وحوشيغيا أن رجلا أي دخل يوم الجمعة أي وحوكسوغل من باب كان الباب مساجد كأولى هابو مركا كسوغل وجاءه المنبر منبر كي أيون يمت وجاه المنبر كان وجاه المنبر كاسو منبر يعني آت كيس هابو كسوغل ويان قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما النبي صلى الله عليه وسلم وتاغن يحي ويان وسيدا بو تاغن يحي. فقال وحير يا رسول الله رسولك إلهي هلكت المواشي وانقطعت السبل حوله ويهلاك سمين ودوين كنا ويقعين ويان وقاديتك وعبما قارسين كريو فادعوا الله أن يغيثنا إلهي نوبر إنه إلهي الرب نسيه. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه النبي صلى الله عليه وسلم قعمه سي أن يكر قاضي وقال وحنير اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا إلهي ونورابي إلهي ونورابي إلهي ونورابي بويري أنا سحويري والله إله بانك والله ولا قال أنا سحويري والله بانك دارتين ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا يعني والله إله بانك دارتين وحيري السماء واحد ضرورة ولا قبر يرى مركا أيضا الضرورة نحن ماذا مسارنين ولا شيء وما بيننا يعني وحن شيء مسارنين وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار بويري مركا أنك يعني محدر أو نود حيث ما ترتي قرية ولا قال وحيري فطلعت من ورائه سحاب ضرورة أيام مركا أيضا سأصوب بحد مثل الترس سيدة قاشانك وكلا فلما توسطت السماء سما دبرتن كيدي مركا يتمد ثم أمطرت وايد مركا وايد أدويان قال مركا سحيرة والله إلى بان كل أرتي أنس بعدها ما رأينا شمس سبتا يعني قرح دمان أرقب لي مركا أسبوع كلن. ثم دخل رجل من ذلك الباب كأسجها في الجمعة المقبلة جمعة دي كلا يعني رنبع كسر قالوا ويان ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قائم وياه متى يخطب قطبينه فاستقبله سوقا بلقائما أسوته قالوا حير يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ودوين حواليه ويهلاك سمين ودوين كنا ويقعين إلهي نوبر رب كان إنه نجتشوتيه. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه النبي صلى الله عليه وسلم قعميسي وكرقها ثم قال يحيل اللهم حوالينا ولا علينا يعني إله هريره إن مركا يال دوشي أننا كوريتي بويري اللهم على الآكام والضراب آكام بتاغا يرير والضراب بورها يرير يول أوديتي ومنابت الشجر يال بويري. قال فانقطعت ويقضي بويري ضرورتي أمر ربك وجوه سذي وخرجنا ونصبحنا نمشي أنه سعنينه في الشمس قرحد أنه سعنينه أيان صبحني بويري. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.